5 maskaxda jabsatay si aad u dareento fiicnaan wax ka yar 5 daqiiqo. Ma maqashay ereyga dagaal ama duul? Waxaa laga yaabaa in hadalka ku hadla dhiirigelinta ama bogga laalaabka ee buugis caawin. Nolosheenna, xaalado badan ayaa soo ifbaxaya marka maskaxdeennu ay rabto inay quusato, waxay dareemaysaa dareere. Si tartiib ah, waxaan baranaa inaan la macaamilno, laakiin qof kasta, socodka dhowrka ilbiriqsi ee ugu horeeya waa adag tahay. Had iyo jeer ma iman doonto gacan aan la arki karin si ay ku badbaadiso. Marka halkan waxaa 5 siyaabood oo aad isku dayi karto inaad naftaada ku beddesho niyadaada. 1. Dib u habaynta urta. Udgoon ayaa saamayn aan la dafiri karin ku leh sida aan dareemayno. Waxay awood u leeyihiin inayna xasuusiyaan xasuus wanaagsan, daqiiqado aan horay u qaadanay oo aad u dheer inaan dib u eegno. Nidaamka urta waa habka dareenka ee mas'uul ka ah dareenkeena urta. Marka aan neefsano molecules waxay la xiriiraan soo dhaweeyayaasha urta ee sankayaga, kuwaas oo markaa sita calaamadaha maskaxdeena si loo farsameeyo. Haddii ay tahay ur la yaqaan oo ku xiran qaar ka mid ah xusuusta aad jeceshahay, maskaxdu waxay si toos ah u aqoonsan doontaa, waxayna kaa caawinaysaa inaad beddesho dareenkaaga. Udgoonyadu waxay dhaafaan maskaxdeena caqligal ah, waxayna si degdeg ah u beddeli karaan xaaladda shucuureed. 2. Khiyaamada barafka. Dhakhaatiirtu waxay soo jeedinayaan in barafka loo isticmaali karo khalkhal dareen. Marka qof qabo barafka, diiradda ayaa si toos ah ugu wareegaysa dareenka qabow. Dareenka kabuubyada ayaa dareenka ka jiidaya walaaca. Farqiga u dhexeeya qabowga barafka iyo diirimaadka jidhka ayaa laga yaabaa inuu maskaxdaada u soo jiido wakhtigan xaadirka ah, oo kala gooya wareegyada fikradaha xun. 3. Beddel agagaarkaaga. Mararka qaarkood in lagu hareereeyo shay isku mid ah iyo dadku waxay maskaxdayada ka saaraan si aan miir lahayn. Dareen ku dheggan ayaa bilaabay inuu xidid yeesho. U dhaqaaq meel kale, xitaa haddii ay ku taal qolka oo dhan ama tallaabo bannaanka ah. Isbeddel degdeg ah oo ku saabsan hareeraha ayaa dib u cusboonaysiin kara aragtidaada. Waxaa laga yaabaa intaasi tahay sababta inta badan filimada, jilayaasha lagu muujiyo inay fadhiyaan badda dhinaceeda ama meel bannaan si ay uga fikiraan nolosha. 4. Neefsashada beddelka. Weligaa ma la yaabtay sababta, mar kasta oo uu qof walba haarsan yahay, ugu yaraan hal qof oo u dhow ayaa u yidhaahda neef qoto dheer saar. Dhab ahaantii ma shaqaysaa, mise waa uun khuraafaad? Cilmiga neerfaha ayaa soo jeedinaya inay si dhab ah u caawin karto dhimista heerarka walbahaarka. Sidee? Isku day taah nafsiyeed degdeg ah, 2 neefta oo degdeg ah sankaaga, oo ay ku xigto 1 neefsasho dheer oo afkaaga ah. Tani waxay dejinaysaa habdhiska dareenkaaga si dhaqso ah. Farsamadu waxay caawisaa hoos u dhigista cortisol, hormoonka walaaca, waxayna yaraynaysaa kacsanaanta jirka. 5. Ishadal marka laga eego aragtida qof saddexaad. Had iyo jeer way dhacdaa, marka saaxiibku u baahan yahay talo, waxaanu noqonaynaa faa'iidooyin, si aan rasmi ahayn u kasbado cinwaanka daaweeyaha mushahar la'aanta. Laakiin marka ay wax la mid ah nagu dhacaan, xagee tagaa daaweeyaha gudaha? Tani waxay dhacdaa sababtoo ah way fududahay in laga hadlo dhinaca qof saddexaad si dhab ah. Marka aad ku jirto xaalad walaacsan ama walaacsan, isku day inaad la hadasho naftaada adoo isticmaalaya magacaaga ama isag-iyada halkii aad ka odhan lahayd i. Tani waxay abuurtaa fogaan nafsiyeed oo ka fog shucuurtaada iyo fikradahaaga, taasoo sahlaysa in aad habayso dareenka oo aad samayso go'aamo wanaagsan. Habkan waxaa loo yaqaan iska hadalka fog ama ilaysm.